daawadayaal ku soo dhawaada sheekooyinka jecel ee Bollywoodka kuwooda guuldareysteen waxaana ku soo qaadanaynaa Vivek Oberoi iyo Aishwarya Rai. Vivek Oberoi iyo Aishwarya Rai laguma xasuusta jacaylkii dhexmaray ee waxaa lagu xasuustaa murankii iyo buuqii ee labadan lamaane ku kala hareen. Aishwarya Rai waxay Vivek isbarteen sidoo kalena uu nolosheeda ku soo biiray xilli ay aad u niyad-jabsaneed, sidoo kalena ay dhibaato badan kala kulantay xiriirkii guuldareystay ee kala dhexayn jiray Salman Khan. laakiin waxaa la yaab ah ilaa maantadan la joogo in Ash aysan weligeed Vivek u aqoonsanin jacaylkeedii, sidoo kalena xiriirkii kala dhexayn jiray waxay ku sheegtay mid qayaali ah. daawadayaal haddaba sidee labadan lamaane markii hore isku barteen sidoo kalena isku fahmeen? हम ना तुम हो कहीं बस प्यार ही प्यार है सुन सको धड़कने इतने पास आओ ना सुन सको धड़कने इतने पास आओ ना सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं हम तुम क्यों खामोश हैं अब मेरे सपनों पे तुम ही तुम छाओ ना. Vivek asagoo dhalinyar ayuu Bollywoodka si dhaqsi ah magac iyo sumcad kaga dhex yeeshay maadaama uu abaalmarino fara badan ku helay qaabjiliinkiisa wanaagsanaa. balse Aishwarya Rai waxay ku sugneed xaalad adag maadaama nolosheeda gaarka iyo nolosheeda fanka uu hoos dhac weyn ku yimid. Ash iyo Vivek ayaa kulmeen sanadkii 2002. Aishwarya Rai oo rabtay qof nolosheeda fahmi karo sidoo kalena culeyska ka dejin karo ayay Vivek gacanta ku dhigtay. labadan lamaane koob walba oo xaflad ah ayay isku raaci jireen waxayna caalamka u muujin jireen inay yihiin lamaanayaal isjecel. sidoo kalena shaqo wanaagsan ayaa dhex martay ayagoo isla sameeyay filimkii Kayun Ho Gaya Na oo soo baxay sanadkii 2004. labadan lamaane waxay isku fahmeen waqti yar, laakiin Aishwarya Rai weligeed saxaafadda kama horsheegin Vivek inuu xiriir kala dhexeeyo, inkastoo Vivek uu mar walba afka ku heen jiray in Aishwarya Rai ay noloshiisa tahay. daawadayaal maxaa sababay inay labadan lamaane kala haraan? wax walba waxay isbedeleen 1 Maarso sanadkii 2003. Vivek markii uu shir jiray uu saxaafadda iskugu yeeray badankooda, Vivek ayaa yiri 29 Maarso haween xilli dambe ah waxaa telefoon iga soo wacay Salman Khan oo aad khamri u cabsan, wuxuuna ii sheegay inuu idili doono haddii aanan nolosha Aishwarya Rai ka bixin. Salman Khan wuxuu ii sheegay inuu tallaabo walba qaadi karo, wax walbana ay ka suurta galaan. isla habeenkaas 41 jeer ayuu telefoon iga soo wacay balse kama qabanin ayuu yiri Vivek Oberoi. 29 तारीख की रात को 29th night around 12:30 technically 30th morning ये पूरी कहानी घटी है from around 12:30 at night till about 5 in the morning. 4.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा. सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन. उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया. मुझसे बात करने लगे. शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे. और he started out saying hadalkii ka soo yeeray Vivek Oberoi ayaa noqday layaabkii ugu weynaa ee abid ka dhaco Bollywoodka. sidoo kalena Vivek wuxuu aaminsanaa in hadalkan sumcad dare ay u keeni karto Salman Khan. Salman Khan xilligaas asaga ayaa ahaa dhibane,
waayo waxaa loo haystay kiiskii uu dadka baabuurka ku jiiray, waxaana Fafeeg lagu celiyay hadalkiisa ka soo yeeray inuu caddeynteeda la yimaado. Aishwarya Rai ayaa dhankeeda ku tilmaamtay Fafeeg doqon iska hadlay, waayo Aish waxay diidaneed mar kale in ay muran la gasho Salmaan Khan oo markaan dhibano ah, sidoo kalena kiis shil baabuur ah maxkamadda ka yaalo. Fafeeg dhankiisa wuxuu yidhi arrinkan Salmaan Khan igu sameeyey waa mid Aishwarya Rai og tahay ee keligeyga iskama sameynin, laakiin nasiib daro Aish qorshahan uu igu tala gashay inaan dhexda kaga dhaco, ayuu yidhi Fafeeg Rai. Labada lamaane xiriirkoodii burbur weyn ayaa ku yimid maadaama Fafeeg arrin Bollywoodka oo dhan ka yaabisay oo ka dhawaajiyay, waxaana loo arkay Fafeeg iyo Aish inay fadeexad dhexda kaga dhaceen, laakiin Aishwarya Rai way iska badbaadisay arrinkan oo Fafeeg ayaa geli ku noqday. Daawadayaal kadib maxaa xigay oo laga diiwaan geliyay labadan lamaane? Aishwarya Rai waxay tiri weligii Fafeeg jacayl uma qaadin, kaliya dad saaxiibo ah ayaa ahayn. Dadka waxay u maleeyaan inaan lamaano nahay. Fafeeg waa qof igu cusub, hataa ayaan bartay dhaqankiisa rasmiga iyo waxa uu yahay. Haddii aan jeclahay hadallada qaar ma uusan ku hadli lahayn asagoo ila tashanin, ayay tiri Aishwarya Rai. Fafeeg Rai ayaa dhankiisa istifaacay, wuxuuna yidhi Aishwarya Rai waa sida balaastiga oo kale, marnaba lama aamini karo. Saacad walba weji cusub ayay kula imaanaysaa, waa sida caaga oo kale. Haddii dab loo dhaweeyo isbeddel ayaa ku dhacayo. Marka lama yaabani hadalka ka soo yeeray waa qof taneesta ah. Aishwarya Rai nolosheeda waxay ku soo biirtay iyadoo dhib weyn haysto. Wax walba oo aan ku caawin karay ayaan sameeyay, balse dhankeeda marnaba xiriirkeeni kama aysan run sheegin, ayuu yidhi Fafeeg Rai. Daawadayaal labadan lamaane waa sidee noloshooda waqtigan? Aishwarya Rai waxay isbarteen si dhaqsi badan ula saaxiibtay Abhishek Bachchan si muranka ee la gasho Fafeeg Rai kaga haro. Sidoo kalena Aish ayaa si rasmi ah ula aqal gashay Abhishek Bachchan sanadkii 2007 iyadoo ku tilmaamtay mas'uul nolosheeda maareyn karo oo aan la mid ahayn ciyaal suuq iska hadlay sida Fafeeg Rai oo kale. Haatan Aish waxay la nooshahay qoyska reer Bachchan, waxaana u joogtay gabar 4 jir ah oo lagu magacaabo Arya Bachchan. balse Fafeeg ayaa dib u dhisay noloshiisa dhanka fanka maadaama jilaagan oo isdhac weyn uu qabsaday. sidoo kalena wuxuu waayay filin sameeyaal la shaqeeyo kadib fadeexadii uu Salmaan Khan kula kacay, maadaama ay ku qalqaalisay inuu sameeyo ficil asaga ka dhigay qof xun oo dadka dhanka ka fogaadeen. Fafeeg Rai ayaa 29 Oktoobar sanadkii 2010 guursaday Priyanka Alpha. waa gabadha uuna dhalay wasiir Jeefaraj ee gobolka Mangalore. labadan lamaane waxa u joogaan wiil lagu magacaabo Fifan oo dhashay 6 Febraayo sanadkii 2013 iyo gabar lagu magacaabo Amiya oo dhalatay 21 Abriil 2015.